bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan salaamayaa ummadda soomaalida ina daawanaysa iyo wasiirada saaxiibada dhinacyada taagan ee ka kala socda puntland iyo jubbaland ugu horreyn waxaan ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka u sheegaynaa inaanu jirin shir fashilmay oo ay og yihiin dowladaha jubbaland iyo puntland taas waa qodobka labaad waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed la wadaagno muddadii halka la fadhiyey in shirku socday in madaxda dowladaha jubbaland iyo puntland ay joogeen muddo bil ah ay ku sugnaayeen caasimadda iyagoo u joogay qaabkii soomaali u aadi lahayd doorashooyinkii la sugayey ee dibudhaca badan ku yimi waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda soomaaliyeed in shirkaas uu socday muddo 3 casho ah la shirayey oo ay shirayeen madaxda wakhtigoodii dhammaaday ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin puntland iyo jubbaland saddexda casho waa la shirayey 2 cashona waxaa lagu kala maqnaa wadatashi 3 cashona waxaa laga wada hadlayey qaabkii doorashada loo aadi lahaa maanta oo ay ahayd maalintii ugu rajada roonayd aanu filaynay inay noqoto maalintii laisku raaci lahaa jadwalkii ama qaabkii doorashada loo aadi lahaa jadwalkeeda laga heshiin lahaa waxaa lagu kala yimi in shirku waxaa lagu soo xidhay oo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ku soo xidhay in lasoo kala nasto oo lasoo kala tashado hase yeeshee cabbaar ka bacdi waxaa soo baxay inuu qabtay shir jaraa'id ninka ugu magacaaban warfaafinta dowladda xilligeedii dhammaaday ee federaalka ah dubbe uu leeyahay shirkii waa fashilmay taas waxaanu u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo beesha caalamkaba inaanu jirin shir ay og yihiin dowladahaasi labada dowladood oo fashilmay ee uu shirku sidiisii loo yahay oo nasasho lagu kala maqan yahay dubbena waxaan odhan lahaa goodka lagu cadaabiyow muxuu go'uhu been sheegay taas oo intaasaan odhanayaa waxaa jirtay ilaa bishii februari 5teedii la joogay dhuusamareeb ee ay ku shirayeen dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka laftoodu in madaxweynaha xilligiisii dhammaaday oo ay 2 casho u harsanayd keliyihii uu ka soo dhoofay halkaa iyadoo la gaadhay go'aamo fiican la gaadhayey oo ay dhinaayeenba in la wada saxeixo tii unbay tanina la mid tahay intaasay soo socotay waxaad og tihiin shirkan halkan ee dowladda federaalka xamar la isugu yimi in dowladaha xubnaha ka ah jubbaland iyo puntland iyo kuwa kale la midkaba iyo iyagaba ay dabada ka riixaysay hormuudna ka ahayd beesha caalamku sidaas ayay ahayd oo halkan uu shirku ahaa hase yeeshee madaxweynihii xilkiisii dhammaaday iyo dowlad iyo xukuumaddiisii xilkuu dhammaaday waxay ka soo hor jeesteen in la aado doorasho ujeeddaduna intaasay ahayd dhowr jeeroo horena waa sheegnay mana rabaan inay doorasho ka dhacdo dalkan mar walbana waxay ku eedeeyaan jubbaland iyo puntland wax ka jiraan ma jiraan